waxaa lagu tilmaami jiray inuu yahay ninka labaad ee ugu awoodda badan uguna saameynta badan dalka Iiraan. waxa uuna ahaa laacib fircoon oo door muhiim ah ka ciyaara siyaasadda mandiqada Bariga Dhexe. haddaba waa kuma ninka ay dunidu weli hadal hayso dhimashadiisa? Qaasim Suleymaani. Major Qaasim Suleymaani wuxuu dunida ku soo biiray 11 bishii saddexaad March 1957 isagoo ku dhashay buucadda loo yaqaan Qanaat al-Malik oo ka tirsan magaalada Kerman. waxay taageerayaashiisu ugu yeeri jireen Xaaji Qaasim, halka ay galbeedku u yaqaaneen The Shadow Commander. shaqada ciidanka ayuu ku soo jiray laga bilaabo sanadii 1979 wuxuuna ka gaaray inuu noqdo taliyaha ilaalada kacaanka Iiraan. sidoo kale wuxuu madax ka ahaa Qaasim Suleymaani ciidamada lagu yeero Quds Force ama Fayliq al-Quds. inta aanu ku biirin ciidamada wuxuu shaqaale xag dhismaha ka noqday magaalada Kerman ee uu ku dhashay, isagoo uga sii gudbay ciyaartooyda culayska qaada. kadib wuxuu ka mid noqday ciidamada isagoo ka qayb qaatay dagaalkii Kurdish Rebellion ee bilowday wax yar uun kadib curashadii kacaanka Iiraan sanadii 1979. intaas wixii ka dambeysay wuxuu Qaasim Suleymaani si xiriir uga qayb qaadanayay dagaallo ugu weynaa kii dhex maray dalalka Ciraaq iyo Iiraan. wadamada kale ee uu ka dagaalamay waxaa ka mid ah Syria oo uu ka babar dagaalamay ciidamada daacadda u ah Bashar al-Assad. haddaba maxaa ka dhalan kara dhimashada Qaasim Suleymaani? dhimashada Qaasim Suleymaani ayaa laga yaabaa in ay horseedo mandiqada dagaal hor leh oo u dhaxeeya labada dawladood waa Iiraan iyo Mareykanka, iyo sidoo kale xulufada labada dawladood. dhanka dawladda Iiraan, madaxweynaha dalkaasi Xasan Ruuxaani iyo sidoo kale hogaamiye diimeedka dalkaasi ugu sarreeya Ayatollah Ali Khamenei ayaa si isku mid ah u ballan qaaday in loo argudi doono ninka ay ugu yeereen shahiidka waddanka, waa Qaasim Suleymaani. dawladda Mareykanka ayaa dhankeeda ugu baaqday muwaadiniinteeda ku nool dalka Ciraaq inay uga soo baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo sidoo kale geysay ciidamo gaaraya 3,000 oo askari saldhig ay ku leedahay dalka Kuwait. haddaba waxaa si weyn lagu dhagtaagayaa falceliska ay dawladda Iiraan kaga jawaabi doonto geerida Suleymaani oo ku baxay gacanta Mareykanka. haddii ay tahay booqashadii ugu horreysay ee channelka, fadlan ku soo biir bahda ku xiran Hiigsi Channel si aad ula socoto muuqaaladeena dambe insha Allah. mahadsanid.